أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليلوان سلامي ميرو البديدو كجوكتين. رمضان مبارك. انتي قدام بيسي باقي إلي لقاري رمضان كإن شاء الله تبنك قدام بي إلهي وحرجيننا إنه إلهي نقبله لما نعماشينا وناكسن bisha ramadaanna kuwii laga aqbalo soonkoogii cibaadadooda ilaahay hay naga dhigo. inta kadib maanta waxaan jecelahay inaan kelmado yar oo kooban aan ka idhaahdo kelmadda haddii ama low. cinwaankeedu waxa weeyaan darsigan maanta low. iska daa hadalka haddii, yani haddii aan sidaa sameyn lahaa mar walba. qoomamada waxaa la yidhaahdo inta badan waxaa inagu badan bini aadanka ama insaanka kulleyba waxyaabaha la yiraahdo qoomamada. inaan mar walba isniraahno arrinkaasi haddii aan sidaa markii hore sameyn lahaa sidan muu noqdeen, waa qalad weeyaan. dad muslimaan nahay, dad iimaan labaa nahay. waxaa kulleyba fiican inuu qofku ku qanacsanaado qadarka iyo wixii ku dhaca mar walba, ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado. iimaanka qofkuna maba buuxsamayaba ilaa au in qadarka wixii ku dhacaya au dee u yaqiinsanaado inay tahay qadar u qornayd, inuu maanta ilaahay abuuray uu qoray waxaan inay soo marayaan noloshiisa. dhibaatadu iska badan tahay adduunka oo waa daarul imtixaan, waa daarul ibtilaa. maalintii ilaahay keenaba wax cusub baad la kulmaysaa. damoor adduunkaad sii noolaatid, damoor aad sii weynaatid, waxaad la kulmaysaa waxyaabo yani cajiib ah ayaad la kulmaysaa. waxyaabo aad mararka qaarkood is odhanayso waxaan oo kale malaha yani aad odhan jirtay waxaan oo kale adduunka mid jiraan ayaad la kulmaysaa. qofku walba inuu diyaar u noqdo ayaa fiican. waa waxyaabaha la yiraahdo waaye aragnimada. marka lagu leeyahay qofkaasi waa waaye arag, yani nolosha waxyaabo fara badan buu soo arkay weeyaan. waqtiyo qurux badan iyo waqtiyo aan qurux badnayn intaba qofka bini'aadanka intuu nool yahay way soo maraysaa. laakiin labada waqtiba waxay nagu haboon inaan ilaahay ugu shukrino oo niraahno alxamdulilah calaa kulli xaal. markaad faraxsan tahayna inaad xasuusinaatid inuu wanaaggan xagga ilaahay kaaga yimid kaagana qornaa ood u mahadnaqdid. markii dhibaato kugu dhacdana inaad tiraahid ilaahay baa ii qoray arrinkana, ilaahu sabir isii oo alxamdulilah calaa kulli xaal aad tiraahid. sabirku waa furaha guusha aad waxyaabo badan kaga gudbaysid. yani wuu qaraaryahay waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa sabirku waa yani waa qaraadh ama waa shay mur ah ood liqaysid. laakiinse sabirkaasi qofka bini'aadanka wuxuu gaarsiiyaa marka dambe guulo fara badan ayuu gaarsiiyaa. runtii ilaahayna wuxuu ku siinayaa nasrigaagii goor ood heshidba adduun ama aakhiro goor ood heshidba. sabirka qofka bini'aadanka uu dhibaatooyinka ugu sabrayo wax badan buu ku gaaraa qofka bini'aadanku. marka ilaahay naga dhigo kuwa mar walba sabirkoogu xoogan yahay oo mar walba sabirka ogaada hadday wanaag tahay iyo hadday xumaan tahayba. zamankan aan ku jirno oo runtii aan dhowr jeer aan sheegay waa zaman alfitan weeyaan. ilaahay naga badbaadiyo xumaantii iyo dhibaatadiiba aad u fara badan. waxa fara badan dadka la dhibaateynayo waan aragnay social media, especially Soomaalidu oon wallahi oran karo malaha Soomaalidu social media dhanka xun un bay u adeegsadaan. dadka inta badan social media soo gala intooda badan daraamada iyo propagandada iyo qiila waqaalka ay run ahaantii soo geliyaan. ilaahay waxaan leeyahay ilaahay soo hadeeyo qofku intuu waxun faafinayo waxa qurux badan inuu wax khayr ah oo dadku ka faa'iideysanayaan inuu muxuu soo geliyo. maanta dhan waxaa lagu mashquulayaa qoys baa lagu mashquulaya ama reer baa lagu mashquulaya dhibaato soo kala dhex gashay ama whatever it is. iyadoo mar walba qalad tahay dadka bini'aadanku inay noloshooda social media soo geliyaan. runtii aan aragnayba maanta inay social media ay noqotayba yani reerkiiba ay noqoto wax yar iyo wax weyn halkaa lasoo dhigayo oo privacy ama wixii yani dadka secretka u ahaa ee reeraha yani u xafidnaaba ay dibadda ay lasoo wada dhigay. waana qaladka dadku ay ka galeen naftooda iyo dadka bini'aadanka ee daawanayaba. runtii qalad baa laga galayaba inuu aaminsanahay.
markuu maanta qof halka intuu soo fadhiista oo noloshiisa ka sheekeeyo ama maanta reer noloshooda halkaa lasoo dhigo, qofkan soo dhigayana runtii naftiisu qalad ka galayaa, oo isagu qofka weliba isa soo bandhigaya isagu naftiisu qalad weyn uu ka galay, oo yani waa qof aan waxaan kara nolosh yani hoos isku dhigay, runtii kalsooniduna aada ugu yartahay. kan isaguna soo bandhigaya reer isaguna ama nolol dad kale soo bandhigayna runtii isaguna waa qof sidaa kale yani noloshiisa naftiisa aanan ku kalsooninayo inuu waxyaabo ka fiican soo bandhigi karo, balse isle ku macaash dhibaatooyinka dadka. oo dad baa carabta waxay tiraahdaa masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu, yani dhibaatooyinka dad ku dhacay dad unbay faa'iido u tahay. dhibaatooyinka social media ka socda dadka yani runtii aadka social media loo wadwado ee lagu dhibaateynayo, dad baa faa'iido u arkaya oo shilimaad ku helaya, oo yani maanta dhan yani soo gelinaya waxyaabo muuqaalo aad ka naxaysid. Allah soo hadeeya Allah umada, Allah soo hadeeya si qurux badan iyo qaab qurux badan dadku way u isticmaali karaan social media, laakiin waxa badan inta sida xun isticmaalayso. mowduucan ka hadlay waxa weeyaan hadaba qoomamada ama kelimada low waa kelimad shaydaan oo nabigu wuxuu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam xadiiska ku sheegay in low taftaa camal shaydaan. qofku markuu qoomamoyo ama low hadii uu yiraahdo shaydaankii baaba abwaabkiisa u furayo, maanta dhan waxbuu maskaxdiisa kusoo celcelinaya hadii saanan sameyn lahaa ciil, murugo, caro, waxyaabo fara badan bay qofka iyo dhibaato ay u horseedi kartaa. marka qofku inuu arrinkaas iska ilaaliyo, wax walba nolosha ku soo maray reason bay ku soo marayaan. qof kasta noloshaada soo galay reason buu soo galaya. inta xun iyo inta fiican ba inaad cashar ka qaadatid baa fiican. dadka xun ee noloshaada soo galay inaad mar walba cashar ay ka qaadatid, experience aanad iska ilaalisid inay dad saas oo kale ay noloshaada dib u soo maraan. qofka wanaagsan sidoo kale wuxuu ku siinayaa waxyaabo xasuusiyo fiican ama memory fiican oo ku xasuusitid ayuu ku siinayaa, oo marnaba aanad iloobeynin. intuba de way isku jiraan dadka bini'aadanka iyo umada bini'aadanka moodo xuma farihiinuna ma sinna, laakiin dad xun iyo dad fiicanba way leeyihiin. laakiin waxaan social media inta badan soo gala waxaan isir waa dadkii xuma ee markii horeba camal la'aanta dhulka la taagnaa ee ayaa maanta social media qeyl u helay oo si qaldan u adeegsanaya. ilaahay umada ka qabto dadka dhibaatada ku dhacday, runtii ilaahay u boogadhayo oo dhibaatada iyo culayska Allah ka qaado. dadka dhibaatada wadana mar kale waxaan la ilaahay soo hadeeyo, ilaahay ka baqa. waliba berihii Ramadaan ee khayrka dadku isfarayeen baad waxaad arkaysaa iyadoo xumaan inta la wareejinayo, cay inta la wareejinayo, aflagaado, fadeexo, yani dad bini'aadan saa loo wadwado. yani soonkeeba qofka u xiran, qofka maanta halkaa soo gelinaya dhibaato iyo cay aflagaado ama video dadku ay isku qabsadaan oo fitna keenay, qofku markuu halkaa soo geliyo ma soon baa u xiran baan oran karnaa, ma cibaada u xiran. marka soonkiiba xataa awal dadku ay is ilaalin jireen baaba iminka inuu soon jiray in kale la kala jeclayna wixii la doona la sameeyo. umada ilaahay soo hadeeya ayaan leenahay. hadii aad soontidna maaha cunto kaliya inaad ka soontid, ilaahay inaad cuntada yani qatanaatid cunto cuni weydid, ilaahay waxba uma sameynaysa hadii aanad cibaadadii kale soonka u lahaa aan la imaneynin. marka ilaahay waa laga boqayaa la umada muslimku, ilaahay umada Soomaaliyeed, umada islaamku waxaan leeyahay ittaqullah ilaahay laga cabsado. maanta aan hayn baa imanaysa oo qofka bini'aadankii wax yari waxaan wuxuu galay halka la hor keenayo oona joyce lahayn intuu dib u soo noqdo oo yani dib u saxo. maanta ayuu qofku joyce haystaa inuu isa saxo. qof walba qof qalad ka galay ha isa saxo. qof walba qof kale niyad jabiyay ama xumeeyay ama dulmiyay, waxaan leeyahay dulumka ka noqo oo naftaada u toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen. adiga ayay ku wanaagsan tahay. qofka dulumka dhibaataysan waliba weydiisa cafi, because ilaahay qalad kasta qofka bini'aadanka wuu ka indhaafa, laakiin qaladka isaga ilaahay laga galay wuu ka dhaafaya cibaadadiisa hadad si fiican u gudan weydo. laakiin haddaad qalad qof kasto bini'aadan aad ka geshid qof kale, ilaahay kaama dhaafayo, qofkaas uu ku cafiyo mooyaane. intaad noosheed neefsanayso ka faa'iideyso, beri inaad dhimanayso ma ogid. qof kasta qofku qaladka ka galay ha weydiisto cafis iyo musaamax. waxaana leeyahay iska ilaaliya kelmadda low. waa nagu soo celcelinaya qoomamayntu shaydaanka ayaa albaabadiisa furtaa. ku qanacsanaada wax walba ilaahay baday, qof walbana naftiisa ku kalsoonaada. dhibaato kastoo soo yani qofka la kulantaana xal beeleeda uuna ka bixi kara, laakiin naftaada dhiirigeli, iimaankaaga xooji, ilaahay u toobadkeen haddaad qalad samaysay.
dee noqo qof yacni ka gudbi kara dhibaato kastoo timaada ilaahayna adoo la kaashanaya wax walbana wax dhibaato walba waxa kaa xajinaysa ama kaa xijaabaysa haddii aad tahay qof ilaahay ku xidhan horta waxba kuma dhibaateynayaan laakiin qofku markuu ka dheeraado xadhigga ilaahay waxyaabo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan baa lasoo gudboonaatay noloshiisa dadku ilaahay ha u dhawaadaan xadhigga ilaahay ha qabsadaan waxba kama xumaanayaan intaasaan maanta kusoo gabagabeynaya فيديوغيga waxaan ilaahay Ramadan iyo khawaati mubaaraka insha Allah ilaahay Ramadaanka khayrkiisa nasiyo wana salaamaya dhamaantiin meel buud joogtiin hadii aad ka heshay message-kayga ama fariinteedan la wadaaga asxaabtaada waan salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh